Xukuumadda Abiy Ahmed oo dagaal xooggan la gashay maamulka TPLF ayaa gabi ahaanba ururkii maamulkaasi ka saartay xisbiyada siyaasadeed ee dalkaas oo sanadihii ugu dambeeyay ka mid ahaa xisbiyada ugu awoodda badan. Guddiga doorashada Itoobiya ayaa shaaciyay inay diiwaanka xisbiyada siyaasadda ka saareen xisbiga TPLF oo horey uga talin jiray maamulka Tigray. Guddiga ayaa xisbiga TPLF ay hogaamin jireen siyaasiyiinta uu dagaalka la galay Abiy Ahmed waxa ay ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen qalalaase siyaasadeed oo ka dhacay dalka Itoobiya. Waxa kale oo hoggaanka ku sababeeyay guddiga doorashada in TPLF ay qaaday tillaabooyin sharci darro ah oo lagu wiiqayo wadajirka iyo ammaanka dalka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay guddiga doorashada Itoobiya. Sidoo kale wuxuu guddiga ka dalbaday 3 xisbi siyaasadeed oo ka jira gobolka Tigray inay sharaxaad ka bixiyaan doorashadii ay kala qayb galeen TPLF, taasi oo suurtagelin karta haddii uu guddiga ku qanci waayo warbixintooda in laga tiro diiwaanka xisbiyada dalkaas. Xukuumadda Abiy Ahmed ayaa dagaal culus la gashay maamulka TPLF oo ay isku fahmi waayeen siyaasad ahaan, isagoona qaaday howlgal militari